aynu u nimaadno caafimaadka maskaxeed. wariyaasha khibradda badan leh ayaa maskaxaan uu wax u dhimi karaa marka ay ka warramayaan cudurka COVID-19. waa in maamulka warbaahintu uu si joogtaa uga warqabo xaaladda wariyaashooda ayna u fidiyaan talooyin iyo taakulayn marka ay u baahan yihiin. waxaa suurtagal ah in xubnaha qoyskaagu ay ka murugoodaan shaqadaada ku aadan tebinta wararka cudurka COVID-19. kala hadal khatarta jirta iyo walaaca ay qabaan. haddii loo baahdo isku xidh xubnaha qoyskaaga iyo la taliyayaasha caafimaadka ee hay-addaada si ay u wada hadlaan. wariyaasha ayaa u sheegay hay-adda layidhaahdo CBJ ee iyadu difaacda ama ilaalisa suxufiyiinta marka ay ka warramayaan cudurka COVID-19 ay eheladooda iyo asxaabtooda su'aal geliyaan khatarta ay wajahaan. inta badanna ay si xun uga falceliyaan taasi oo niyadjab ku noqon karta. macluumaad muhiim u ah shaqaalaha warbaahinta ee ka warrama xaaladaha murugada leh ayaa waxaad ka heli kartaa xarunta layidhaahdo DART ee saxaafadda iyo shoogga. iska ilaali caabuqa iyo in aad qaadsiiso dadka kale. dalal badan ayaa hadda ku dhaqma nidaamka kala fogaanshaha dadka. haddii aad ka soo warramayso meel ay ku sugan yihiin kooxaha gurmadka degdega ah ama aad booqanayso goobaha aan sheegi doono, sii ogow tallaabooyinka fayadhowr ee goobahaasi u degsan. ha booqan goobahaasi haddii aad wax shaki ah ka qabto. xarun kasta oo caafimaad, guryaha lagu daryeelo dadka da'da ah, guriga qof xanuunsanaya, qof qaba xaalado caafimaad ama dumar xaamilo ah, goobaha meydadka lagu kaydiyo ama la dhigo, ama aasaska, goobaha karantiinka ama deegaan bandow ah, goobaha ay dadku aadka ugu badan yihiin sida xaafadaha isku raranta ah ama isku dhex jira ama isku huursan ama isku badan, xeryaha qaxootiga.